waxaa soo kordhaya tirada madaxweynayaasha loo dooranayo maamul goboleedka Jubbaland tan iyo markii toddobaadkii hore ay ka qabsoontay magaalada Kismaayo doorasho hal maalin laba madaxweyne ku soo baxeen ee dowladda federaalka iyo beesha caalamka ay diideen inay aqoonsadaan natiijadeeda wixii markaa ka dambeeyay waxaa soo ifbaxayay siyaasiyiin ka soo jeeda Jubbaland oo mid walba warbaahinta la wadaagaya in loo doortay madaxweyne xasan ibraahim xasan waa mid ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Kismaayo waxaana uu shaaciyay in uu yahay madaxweynaha aqlabiyadda shacabka maamulka Jubbaland ee u imadeen in uu samata bixiyo bulshada Jubbaland kadib doorashadiisii waxa uu warbaahinta kula hadlay goobtii lagu doortay oo ah magaalada Kismaayo. alxamdulillaah wasalaatu salaatu wassalaam ala rasuulillah. maanta bisha ay tahay 25 bishii August ama bishii 8 waxaan halkaan isugu nimi in la doorto shakhsi hogaamiye ah shakhsigiina ilaahay nasiibkiisii ka dhigay xasan ibraahim xasan oo aniga ah ergadii iyo dadkii doortay kuwii soo jeedinta lahaa kuwii aan dooran iyo kuwii doortay intaba oo hambalyanay hambalyo kadib waxaan insha Allah aan ballan qaadayaa hadduu ilaahay yiraahdo codsigiinii soo jeedintii ahaa oo ahaa in maamul wanaag iyo cadaalad iyo sinaan iyo horumar ilaahay idinkiis waa idinka ballan qaadayaa inaan iyo dhibaatooyinka hore u jiri jiray inaan jirin insha Allah billahi kariim. waxa uu xasan ibraahim xasan ka hadlay siyaasadiisa ku aadan la shaqaynta dowladda dhexe haddii ay u ansaxdo doorashadiisa uu sheegtay in uu yahay madaxweynaha Jubbaland. dowladda dhexe iyo caalamkaba in aan ula shaqayno sida shuruucda dalka ay ugu shahay anagoo marayna shuruucda dalka insha Allah billahi kariim. ma dhici doonto in la yiraahdo dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta aan ii doortay in dib dambe u dhacdo wuxuu jiraa meel hibla waa goostay dawladdu waan ka goostay laaqadkayga caalan kale ma samaysan karno dawlad kale ma yeelan karno waxaan la shaqayn doonaa insha Allah billahi kariim sida shuruucdaba ay qabto dawladdu dhexe ee federaalka insha Allah billahi kariim. waxaan kale idinka ballan qaadayaa ilaahay idinkiisi in aan isqabsi dhicin wasiiro aad idinku gacmihiina ku soo qorateen aad soo doorateen inaan si degdeg ah idinku magacaabo ilaahay idinkiis. waxaan kaleeto caalamka ka codsanayaa oo dawladda dhexe ka codsanayaa inay nala shaqeeyaan sida ay tahay noola shaqeeyaan wixii aan muxuu ahaay ilaahay baytiisi tahay ee aan shuruuc ahayna inaan ka leexano wixii dhaqan Soomaaliyeed ahna inaan dhaqno insha Allah billahi kariim oo aan ku dhaqno dalku rabootinka ummadda iyo ilaahay wuxuu jiday inaan wadada u marno. waa madaxweynihii afraad ee loo doorto maamulka Jubbaland ee u warama warbaahinta balse xasan ibraahim xasan ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee loo doorto Jubbaland kaasoo u dhashay beelweynta Digli iyo Mirfle.